habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. Qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxa ay kala yihiin shirkii ugu weynaa ee dhexmara madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka muddo 8 sano ah. Madaxweyne Trump ayaa shirka isaga iyo Putin ku tilmaamay bilow wanaagsan. waxaanu ka soo warrami doonaa khatarta ay wajahaan haweenka Koonfur Afrika ee ku nool magaalooyinka halista ah, halkaasi oo saddexdii ninba mid uu qirto inuu wax kufsaday. وحلقي دبالدقة حالي مقالة باريس لغما سيحان كدب مركي كوحدة فرانسيسكو ay ku guuleysteen koobkii adduunka dadka caadiga ee Ruushka iyaguna waxay u dabaaldegayeen sida wanaagsan ee ay u martigeliyeen ciyaaraha. Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa wada hadallo toos ah ku yeeshay caasimadda dalka Finland ee Helsinki. waa kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan hogaamiyaasha labada wadan muddo 8 sano ah. ka hor kulanka Mr. Putin waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga wada hadlo arrimaha aadka u adag, halka Mr. Trump uu filayo in shirkan uu ka dhasho xiriir aan caadi ahayn. shir jaraa'id oo Donald Trump iyo Putin ay qabteen kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha Ruushka waxa uu qiray in xiriirka labada dal uu gaaray meeshii ugu hooseysay tan iyo dagaalkii qabooba. Donald Trump ayaa tilmaamay in arrimahaasi oo dhan wax looga qabanayo looga bedelay kulanka si saacadaha ka hor dhacay. xataa waqtigii dagaalka qaboobay uu jiray adduunku aad uu uga duwanaa sida hadda uu yahay. Mareykanka iyo Ruushku wada hadallo joogto ah bay lahaan jireen, laakiin xiriirka iyagu halka uu gaadhay xumaan hadda hore uma gaadhin. hase yeeshee waxa uu isku bedelay 4 saacadood gudahood. taasaan anigu aaminsanahay. waxaan diidanahay siyaasad ahaan inaan la wada hadal. waa in la wada hadlaa, haddii kale waxba la gaadhi maayo. Trump ayaa Putin ku tilmaamay garyaqaan adag. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in labadooduba ay ka wada hadleen arrinta in Ruushku uu farageliyay doorashadii Mareykanka. madaxweyne Putin oo ka garab hadlayay Trump intii uu socday shirka jaraa'id ee Helsinki waxa uu sheegay in aan la sababayn karin xiisadda ka dhex taagan labada wadan. way iska caddahay qof walibana waa og yahay in xiriirka labada dhinac uu ku jiro marxalad adag. hase yeeshee caqibadaha jira, xiisadda taagan iyo jawiga kacsaniba ma aha mid xaqiiq ku salaysan. dagaalkii qaboobaa waa laga soo gudbay. arrimihii ku saabsanaa ismaandhaafka qadiyadaha labada wadan way dhammaadeen. waa bog taariikhi ah. xaaladda adduunku way isbeddeshay. maanta Ruushka iyo Mareykankaba waxaa la soo darsay caqibado cusub. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan shirkaasi Putin iyo Trump iyo warbixino kale waxaad ka heli kartaa bogayaga internetka bbc.com/somali adiga oo ka gelaya moobilkaaga. ka waran haddii aad ku nooshahay meel saddexdii ninba mid ka mid ah uu qirto inuu wax kufsaday. taasi waa xaaladda ay ku nool yihiin dumarka Diepsloot oo ka mid ah xaafadaha ugu halista badan Koonfur Afrika. tiraan caadi ahayn ayaa ka mid ah waxaa lagu ogaaday baaritaan cusub oo BBC-du ay ku eegaysa dhaqanka kufsiga ee waddankaasi. Bumza Fihlani ayaa u socdaashay Diepsloot si ay ula kulanto ninka filimkaasi baaritaanka sameeyay iyo qaar ka mid ah haweenka maalin walba halista kufsiga wajaha. warbixinta waxaa ku jira muuqaalo aad ka naxayso. Diepsloot waa magaalo aysan halistu marnaba ka fogeyn daafaha dhanka waqooyiga Johannesburg. halkan faqriga iyo dembigaba waxay ka yihiin caan. shaqo la'aantu aad ayay ugu badan tahay halkan iyo faqrigaba, laakiin dhibaatada keliya ma ahan kuwaasi. waa meel aad halis ugu ah gaar ahaan dumarka. Maria 2 goor waxaa kufsaday hal nin iyadoo gabadheeda 4 jirta ah ee qolka ku dhegan ay jiiftay.
waxa ay tidhi waxaan ku ducaysanayay in gabadhayda aysan toosin anigoo ka baqayo waxa uu ku samayn karo wuxuu ii sheegay inuusan doonaynin inuu qofna uu dilo balse wax kale ma siin karin si aanu joojiyo wuxuu yidhi waxaad doonta samee kadibna mar labaad ayuu kufsaday cidina ma xisaabin tirada dumarka lagu kufsaday Deep Sleuth laakiin baaritaan ayaa muujiyay in saddexdii ragba mid uu qirtay inuu qof kufsaday waa baaritaan uu wariye deegaanka ah ee lagu magacaabo Golden Matike uu BBC-da kala qayb galay wuxuu dabagalay 2 nin oo ku faraxsan in kaamarada horteeda ay ka qirtaan in ay dumar kufsadaan intii aan soconnay waxaan u sheegnay inay aamusto midi ayaan ula soo baxnay waxaan geynaa sariirteeda si aan u kufsanno ma fahmintaa aawi damiirkaaga damiir la'aan dhanka qaar la yaab ma lahan in raggan ay dhiiran yihiin arrimahan waxay ka mid noqdeen wax ay ka helaan 500 oo kiis oo kufsi ah ayaa booliska Deep Sleuth lagu wargeliyey in ka badan 3 sano gudahood mid keliya ayaana la xukumay halkan waa meesha dadka deegaanka ay keeneen 3 qof oo laga shakiyey Golden wuxuu sheegayaa in natiijada ay noqotay in ilaalada deegaanka ay dil geystaan wuxuuna nageeyey meel mar uu joogay dad lagu dilay caadi miyay ka tahay dilalka ilaalada deegaanka waa caadi sababtoo ah waxa ay dhacaan inta badan dhammaadka isbuuc kasta Deep Sleuth waxay la mid tahay god dheer dadka halkanna waxay dareemayaan in la ilaaway oo la gooyay iyadoo dhibaatada bulshadan ay ka dhalatay faqriga caadaysiga kufsiga waxay noqotay cawaaqibta ugu ba'an bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub waxaa ka furmay maanta shirka iskaashiga beesha caalamka iyo Soomaaliya oo arrimaha shirkaasi looga wada hadlayo ay ka mid yihiin kaalmada bini'aadanimada horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha amniga ee Soomaaliya hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa ku booriyay Shiinaha Mareykanka iyo Ruushka in aanay bilaabin dagaal ganacsi madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa u jooga Beijing shir sanadeedka u dhaxeeya midowga Yurub iyo Shiinaha waxaana uu sheegay in dalalku ay ka wada shaqeeyaan sidii dhibaato aanay u dhici lahayn Shiinaha ayaa sanadkii hore Yurub u soo dhoofiyay alaab qiimaheedu dhan yahay 435 bilyan oo dollar waxaana ay doonayaan in ay xoojiyaan doorkooda ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa iyo ninka qaba ayaa dacwad ka furay dambiga la xiriira musuqmaasuqa loo haysto jimcihii ayaa dhammaantood ay xabsi bilaabeen kadib markii ay ku laabteen oo waddankan Britain ay ka laabteen maxkamad ayaa ku heshayna dambi la xiriira guryo qaali ah oo ay ka gateen London Mareykanka ayaa ku gacan sayray codsi uga yimid midowga Yurub oo ah in ay ka reebaan shirkadaha Yurub cunaqabataynta Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan warqad loo diray ayaa lagu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda iyo kan maaliyadda ee Mareykanka ay doonayaan in Washington ay awoodaan cadaadis aan caadi ahayn oo aan horey loo arkin xagga dhaqaalaha ay saaraan Tehran ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa si wada jira dib uga furay magaalada Addis Ababa safaaradii Eritrea labada hogaamiye ayaa calanka Eritrea isla saaray dhismaha safaaradda kaasi oo halkaasi laga dejiyay muddo hadda 20 sano laga joogo kadib dagaalkii dhinaca xuduudaha hadda waxa uu muuqataa in colaadii lagu dhameeyay heshiis xuduudaha in la isku furo Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya waa dabaaldeg ka dhacaya Itoobiya oo siyaasiyiin ay madadaalinayaan dadka waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki labadan hogaamiye ayaa maalmo gudahooda ku soo afjaray cadaawad soo socotay 10 sano iscafintu waxay furtaa laabtaada oo qalbigaaga ay naxariista ku soo celisaa waxaan ula jeedana waxa weeye waxaanu door bidnay saaxiibtinimo iyo kalgacal Eritrea ayaa ka go'day dalka dariska ay yihiin ee Itoobiya sanadkii 1993 kadib dagaal aad u dheer laakiin 1998 ayuu dagaal kale dib uga bilowday dhulal la isku haysay sida magaalada Badme heshiis nabadeed ayay wada saxiixdeen sanadkii 2000 ma uusan dhaqangelin waxaa la sheegay in ay dad gaaraya 80,000 oo qof ay ku dhinteen dagaalkaasi socday 2 sano
haddase waxay u muuqataa in sannadihii dagaalka ay dhammaadeen madaxweyne afawarqi ayaa etoobiya tegey maalintii sabtida waxaa ka soo wareegtay isbuuc maalintii ay labadan hoggaamiye ku dhawaaqeen in xaaladdii dagaalka ay soo gebagabowday dabaaldeggan ayuuna madaxweyne afawarqi kula hadlay dadka etoobiya weliba isaga oo kula hadlaya afkooda amxaariga waxaan door bidnay inaan jeexno waddo cusub oon wada shaqayno si aan u gaarno horumar guul iyo nabad islamarkaana ka xorowno nacayb burbur shirqool iyo aargoosi laakiin weli waxaa taagan walaac ku saabsan xuduudaha cusub halka ay noqonayaan iyo haddii ay cadaawaddan dabadheeraatay ay si degdeg ah saaxiibtinimo isugu beddeli karto dad gaaraya boqolaal kun oo qof ayaa ka qaxay dhibaatooyinka dalalkan geeska afrika ku yaalla oo u doontay meelo kale nabadgelyo iyo fursado shaqo qaramada midoobey ayaana sheegtay inay samayn doonto wax walba si heshiiskan uu u guulaysto dadka ku nool labada dhinac ee xuduudaha etoobiya iyo elitareya ayaa soo dhoweeyey heshiiskan waxayna u haysteen in noloshooda aysan arki doonin arrintan markana waxaanu eegaynaa koobka kubadda cagta adduunka maalin kadib weli xaflada ayaa ka socda waddanka faransiiska guushii ay gaareen xulka kubadda cagta ee faransiiska oo qaaday koobkii adduunka ee kubadda cagta ee sanadkan ee ruushku ay martigeliyeen waxaana hadda ay tageen kooxda faransiiska oo 4-2 finalkii uga adkaatay Croatia waddankooda waxaana ay ku sugan yihiin ciyaartoyda magaalada Paris waxaana magaalada buux dhaafiyay kumanaan qof oo doonaya inay arkaan halyeeyadooda kubadda cagta bal haddana aynu dib u eegno marka hore sidii ciyaaruhu u dhaceen waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ka warrama waa sidan oo kale marka dalkaagu qaado koobka adduunka farxad iyo xaflada aan hore loo aragaya Paris ay isugu soo baxday waxaaba loogu bariyay waaga waxaana la filayaa inay sii socdaan ciyaartoyga Faransiiska waxa uu hadlay tababarahooda shir jaraa'id oo uu qabtay ingiriiska laftiisa farxada ayaa ka dhacay toddobaadkii hore inkastoo aanay sii socon kadib markii Croatia ay ka badisay Belgiumkuna waxa ay galeen kaalinta saddexaad waxaana loo soo dhaweeyay si ballaadhan laakiin sanadkani waxa uu sanadkii la yaabka kadib markii dalal waaweyn hawada laga saaray galin horeba Jarmalka oo haystay koobka ayaaba koonfurta Kuuriya ka badisay dabadeetana kooxo kale oo waaweyn ayaa iyagana wadadii ay ka yimaadeen la tusay Spain ayaa ruushku garaacay oo la yaraysanayay loona haystay inay iyagu hooseeyaan markii tartanku bilaabmayba waxaa dhacday in kooxdan martida loo ahaa ay gaadheen halkii ugu sarreysay tan iyo 1970kii wakhtigii midowga Soofiyeedka waxaana uu mahadnaqayaa taageerayaashooda ajibaysnaa Boortaqiiska ayaa isna 10 lamaylaawaan ah Uruguay u dhigtay waxaana halkaasi ka carraabay Ronaldo oo 4 gool haystay Messi isagu gool qulaha ayuunbuu dhaliyay intaan Argentina aanay reebin Faransiiska kooxda koobka qaaday Masar waa ku fashilantay inay guul kaliya keento iyadoo uu dadaalayay xiddigooda Maxamed Saalax dalalka kale ee Afrika ayaa keensaday taageerayaal cajiib ah oo midabo qurxoon sita laakiin galin horeba waa ay carraabeen Senegal, Nigeria, Tunisia iyo Morocco intaan wareegii labaadba la isla gaadhin taageerayaashii Brazil ayaa iyaguna niyad jabay kadib markii kooxdii 5 jeer badisay ay Belgiumku jiireen dabcan kooxaha waaweyn ay soo noqon doonaan ciyaaraha 2020 ee Qatar Ruushka ayaa u arka tartankani mid guul ku dhammaaday iyadoo iminka ay tahay inay Qatar guntiga dhiisha isaga dhigto kooxda kubadda cagta ee Croatia ciyaartoydoodu goor dhaweyd ayay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Zagreb waxaana inkastoo aanay koobkii keenin waddankoodii haddana loo soo dhaweeyay si la yaab leh iyadoo taageerayaal faraxsan ay ku soo dhaweeyeen markii ay garoonka diyaaradaha ay ka soo degayeen laakiin dhinaca Argentina iyo jabkii kooxda Argentina koobka adduunka waxa haddana ay istaayeen tababarahoodii Jorge Sampaoli kadib markii 13 bilood uu la joogay oo kaliya heshiiskiisii 5 sano ahaa kooxda ayaa ka hartay tartanka adduunka markii ay wareegii 16 ay 4-3 kaga adkaatay kooxda waddanka Faransiiska wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bogayaga bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa habeen wanaagsan
Thank you.